Assalaamu calaykum. Maanta waxaan isu leeyahay 5 qodob oo lagu gaari karo beerley iyo qaninimo. Waxa kala jira wax la dhaho baahi iyo baahitire. Waxa kaloo jira wax la dhaho xaajiyaad iyo daruuriyaad. Daruuriyaadku waxaan laga maarmin ee loo dhinto. Xaajiyaadkuna waxa dhamaystirka ee nolosha iska dhamaystira. Wadanka Soomaaliyeed waxa uu ka mid yahay wadamada adduunka ugu cimilada wanaagsan leh. Sidoo kale 12 bilood ay wax ka bixi karaan xagga caalamka kale 6 bilood kaliya ay ka baxaan sida wadamada inoo soo dhoofiya waxaynu quudanno xitaa wax kale daayo galeyda qabandida haruurka iyo waxyaabaha asalkeena ahaan jiray wadamada inoo soo dhoofiya oo wadamada beerta 6 bilood kaliya oo wadamada cimilada wanaagsan lahayn. Haddaba wadankeena Soomaaliyeed waxa uu leeyahay badda Afrika ugu dheer aynu naqaano dhererkeeda. Sidoo kale waxa uu leeyahay wabiyada aynu naqaano dhererkooda oo haddii la qiyaasi lahaa ama wax soo saarkooda la eegi lahaa Afrikaba uu deeqi lahaa dhul beereedkeedu. Haddaba inagoo haysana cimilo wanaagsan sidoo kale shaqaalayaal muwaadiniin ah oo bilaa shaqo ragaadisay maxay tahay sababta leenugu soo dhoofinayo xitaa findhicilka inagoo intaaba awoodna sidaa la oran jiray Ilyar oo xukuumadii hore Soomaaliya xil ka haysay ayaa Ingiriiska wax u keenay intaas oo hektar oo raashina iyaduna maba isticmaalna waxay ku qubtay badda si aan uga jeedin dalageeda dhulka waayo marka lagu siiyo wax bilaasha aanad qalab iyo qarashtoona ka bixin waxaad ka jeesanaysaa dhaqaalahaagii dalka yaalay aakhirka waxa kugu dhacaysa mahmaadii Soomaaliyeed ay dhihi jirtay doqoni oo siis bay harmoodaa. Haddaba waxaynu sil eegaynaa dhowr wadan oo u keediyay cuntadooda wadankooda waxaana ka mid ah Hindiya gabi ahaanba way joojisay wixii ay dhoofin jirtay. Sidoo kale China ayaa wax u keedsay cuntada adduunka 150 waxaana la ogaaday sababta uu keedsanay waxaana la ogaaday inuu ka baqayo abaar. Wadamadu waa kuwa isaga fakaraya dadkooda. Wadanka Soomaaliyeed waxa la keenaa cunto firiya waliba hadeer bay soo go'aysaa waxa iman jirtay galey haruur iyo qabandi firiya. Inta kadib waxa laga jeestay tii wadanka waxa la yiri warta firiga waanu qaadanaynaa xitaa qofkii iibsan jiray wuxuu yiri maxaa baan iibsanayaa haddaan mid firiya helayo. kuwii beeri jireen waxay dhaheen war waxaan laga iibsanaynba waxaan u beeraynaa maanu iska wasaxsaxano oo lacagtaana la siinayo ee chief oo jiqda aanu iska qaadano. Inta kadib waxa la dhacay xoolihii la dhaqan jiray oo laga xarooday beerihiina farahaaba laga qaaday. Inta kadib waxaan noqonay isticmaalayaal wanaagsan laakiin waxa linaga baahan inaan noqono samaystayaal wanaagsan. Haddaba aynu islaagana 5 qodob ee laga bixi karo waxa soo dhibaato 1 maalgashi dhuleed oo qarash iyo qalab wata. 2 aqoon xeel dheer oo aynu u yeelano dhinaca beeraha way bilaa aqoon waxba lagu wadi karo. 3 iskaashi bulsheed. 4 fikir xeel dheer oo aynu u fikirno sidii Ilaahay nagu tala galay. 5 cilmi guud oo loo yeesho aqoonta noocyada kala duwan way aqoonta qofka bilaadanka way kabtaa. Wassalaamu calaykum.